ururka albaraka ee fadhigiisu yahay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ee gudoomiyaha ka yahay Sheekh Cabdilaahi Jaamac Haruun oo loo yaqaan Cabdilaahi Muwaadin ayaa wuxuu deeq soo gaarsiiyay laba masaajid oo ku yaala magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn iyo masaajid ku yaala deegaanka Quraacdalaan oo ilaa 35 kiiloomitir u jirta magaalada Buuhoodle. deeqdani oo cadadkeedu waa $500 ayaa waxa masaajidadani ku soo sadaqaysatay Cudbi Haruun Aadan oo degan wadanka Sweden, waxaana lacagtaasi si rasmi ah u wareejiyay imaamyada masaajidadaasi gudoomiyaha ururka albaraka Sheekh Cabdilaahi Jaamac Haruun. ilaahay wuxuu noo suuro geliyay maanta inaan halkan ka qabano barnaamij tabarruc ah oo masaajidda loogu tabarrucayo iyadoo ay fulinayaan ururka albaraka samafalka ee fadhigiisu yahay magaalada Buuhoodle. tabarruca aan gaarsiin doono insha Allah ta'ala biidni al-Mawla saddex masjid oo qabiyo ah ama waxay ka dhiman yihiin ama u baahan xaalis iyo dhamaystir qaabkii saddex masjid oo mid yahay kan aan taaganahay oo ah jaamic Buuhoodle, masjidka labaadna uu yahay masjidka labaad ee magaalada Buuhoodle gobolka Cayn, masaajidka saddexaadna insha Allah uu noqon doono masaajidka Quraacdalaan oo isagana dhawaan dhismihiisa la dhamaystiray laakiin u baahan istabaka raacin. ilaah baa mahad iska leh. annagu urur ahaan dhaqaale ma hayno laakiin maskax baan haynaa. maskaxdaasaan rabnaa inaan walaalaha muslimiinta uga faa'iideyno, qola ka soo qaadno, qolana gaarsiino, cid ka soo qaadno, cidna gaarsiino. marka annaga waxaa weeye shaqadayadu inaan baahida muslimiinta iyo baahida dadka walaalaha ah ogaano, markaanu ogaanana cid wax ka qaban karaysa gaarsiino, markaanu gaarsiinana waxayna soo gaarsiiyaan si gaarsiino bi'awn Ilaahi wa tawfiiqihi. lacagtan waxaana soo gaarsiisay hooyooyinka muslimiinta kamid ah oo degan wadanka Sweden oo magaceeda la yiraahdo Cudbi Haruun Aadan. ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaanka xasanaadka inuu ugu daro. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu waxa ay doonayso ku siiyo. ilaahay waxaan uga baryaynaa wiil baa ka buka wiilka in ilaahay ugu caafiyo. ilaahay waxaan uga baryaynaa hooyada la soo baxday lacagtaas bedel khayr qaba iyo ciwad khayr qaba iyo waxa ay doonayso ay heshaan. ilaahay uga baryaynaa lacag $900 waxaan ku wareejinaynaa masaajidka jaamaca Buuhoodle imaamkiisa Maxamuud Sheekh Ali biidni al-Mawla. masaajidka Salaaxudiin oo marmarkii la dhigayo waxaan ku wareejinaynaa lacag dhan $400 imaamkan ku wareejinaynaa magaalada Quraacdalaan waxaan ku wareejinaynaa isna $200 aan u wakiilanay Ali Bashiir Xaaji Cabdicasiis Aadan Jaamac TV-ga caalamiga ee Samsad magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn.